gabadhan quruxda badan marka aragtid waxa u maleyn doontaa ardayad ama gabar dhigata jaamacad, laakiin sidaas maahan. Way ka duwan tahay qofka aad u maleysid. Gabadhan 10 saacadood gudahood ayay waxay ku dishay 115 qofood. Gabadhan waxaa lagu magacaabaa Kim Hoyon Hee. Kim waa sirdoonad ka mid ah sirdoonada waqooyiga Korea ama North Korea. Kim maanta waxaa loo diyaarinayaa inay qabato shaqadaas oo ah inay disho in ka badan 115 qofood. Kim kaligeed ma wax shaqadan qaban doona. Shaqada waxa kula jira ninkaas waxa uu saaxadda sirdoonnimada ku soo jiray muddo gaaraysa 40 sanadood. Hadda ninkaas waa 70 jir, laakiin waxa uu rajeynayaa qorshahan inuu noqdo mid uu aad uga fikiro. Gabadhan mishinka loo diyaarinaya iyo odayga labadooda waxa u dhaxeeya ninkan waxa soo wakiishay madaxweynaha maanta waqooyiga Korea xukuma aabihiis oo lagu magacaabi jiray Kim Jong Il. Kim isla asaga ayaa soo diyaariyay mishinkan lagu dili doono 115 qofood. 115 qofood waxaa la sheegay inay dhammaantood ka tirsanaayeen dowladda Koonfurta Korea. Mishinka ka hor waxaa la soo diray warqadaas waxaa soo diray isla madaxweynaha waqooyiga Korea. asaga ayaana gacantiisa ku soo qoray. Waxa uu soo dhiibay ninka wakiilka uga ah mishinkan. Warqadda waxa ku qornaa mudanayaal, maanta idinka ayaa idin xilsaartay mishinkan. Waxaan doonayaa inaad mishinkan u fulisaan sidii ugu wanaagsaneed. Ma doonayo in laydin qabto. Haddii la isku dayo in laydin qabto, waxaan doonayaa inaad naftiina ka takhalustaan si aan sirteena loo ogaan. Waxa idin soo dhiibay baakad ay ku jiraan sigaar. Sigaarkaasi ma ahan sigaarka caadiga ay dadka cabaan. Sigaarkan waa sun. Waxaan ugu talagalnay haddii la isku dayo in laydin fahmo ama in laydin qabto inaad sigaarkaas daartaan kadibna aad cabtaan. Markaad cabtaan wax ka yar daqiiqad ayaad ku dhiman doontaan. Sirteenana cidna ma ogaan doonto. Warqadan waxa idin soo qoray mudane Kim Jong Il. mudane adiga dhageysanaya sheekadan, xisaabta waa inaad ku darsantaa xeerka sirdoonada. waxaa ka mid ah intii lagu fahmi lahaa ama nala soo dabageli lahaa waxaa noo fudud inaad adiga isdisho. waana mid ka mid ah go'aanada ay qaataan dadka ka shaqeeya arrimaha basaasnimada. Hadda waxaa la gaaray xilligii gabadha Kim iyo odayga ay isku diyaarin lahaayeen mishinkan. Ka hor mishinkan waa in la dejiyaa qorshe oo dowladaha ama dalka laga fuli rabo mishinkan aysan fahmi karin inay yihiin dad basaasiin ah. Si mishinkan loo qariyo waa in loo duulaa dalal kala duwan, waa in la soo qaataa baasaboorro kala duwan, sidoo kale waa in la qaataa magacyo kale oo aanan ahayn magacyadooda saxda. Waxa ay soo aadeen dalka Japan si ay halkaas uga qaataan baasaboor cusub ayna u qariyaan shakhsiyadooda saxda ah. waxaa la tagay halkii laga qaadan lahaa baasaboorka oo ah dalka Japan. waxaa lagu heshiiyey in odaygu uu noqdo Kim aabaheed, Kimna ay noqoto odayga gabadhiisa. Kim iyo odayga waxa ay la baxeen laba magac oo is-shabaha. Gabadhu waxa ay la baxday Miyami Hanichi, halka odaygu asaguna uu la baxay Shijiya Hanichi. Markan waxa ay jiri doonaan gabar iyo aabaheed kuwaas oo u socda dalxiis. Marka koowaad si ay u tirtiraan raadkooda waa in ay u dalxiisaan dalalka Yurub, kadibna ay aadaan halka ay doonayaan in ay mishinka ka qabtaan. Markan waxaa la soo qaatay diyaarad waxaana loo duuli doonaa dalka Ruushka. Odaygu muddo badan ayuu ka soo shaqeynayay barnaamijka basaasnimada. waa nin aad u xeel dheer, waa nin feejigan, sidoo kale waa nin shaki badan. waxa uu taleefanka ka wacay ninkii wakiilka ka ahaa madaxweynaha dalka waqooyiga Korea. waxa uuna weydiiyey waxa ku qasbaya marka hore ay aadaan safar sidaas aad u dheer oo ay Yurub oo dhan ku soo dalxiisaan. laakiin ninka ayaa jawaab ku soo celiyay oo yiri qorshahan ma ahan mid wax laga bedeli karo. waxaa dejiyay madaxweynaheena sida uu yahay waa in aan u qaadanaa. dood dheer waxaa lagu qasbanaaday in la aado safarka Yurub. waxaa loo duulay dalka Ruushka, gaar ahaan caasimadiisa Moscow. muddo ayaa la joogay, waa laga duulay, kadibna waxaa loo duulay waddanka Hungary, kadibna Poland, kadib Romania, kadibna Talyaaniga. markii ay maalmo badan dalxiisayeen waxaa la gaaray xilligii ay si toos ah u aadi lahaayeen halkii ay mishinka ka qaban lahaayeen. waa ay isdiyaariyeen, waxa ay xirxirteen qalabkoodii iyo boorsooyinkoodii. waa ay duuleen, waxayna u duuleen dalka Ciraaq, caasimadiisa Baghdad. Baghdad waa halka uu mishinka ka dhici doono. sidoo kale waa halka lagu diyaarinayo in lagu dilo 115 qofood oo ka mid ah dowladda Koonfurta Korea. waxaad isweydiinaysaa maxay tahay sababta loo leenayo dadkan ama loo dilayo. waxaa jiray in uu dagaal iyo cadowtinimo fara badan dhex maray labada dal ee waqooyiga Korea iyo Koonfurta Korea. waqooyiga Korea waxa uu ekaa ilaa maantana uu eegyahay dal burbursan, dal aan lahayn internet,
dal aan lahayn horumar weyn, waana sida ay mar walba warbaahinada tabiyaan. Waqooyiga Kuuriya mar walba waxa ay ka dagaalamaan warbaahinada iyo sida ay u arkaan. Sanadka xiga, Koonfurta Kuuriya waxaa lagu qaban doonaa koobka Olombikada adduunka. Waxaa imaan doona saxaafadda caalamka oo dhan. Waxa ay gudbin doonaan quruxda caasimadaha iyo horumarka wadanka Koonfurta Kuuriya. Sidaas oo kale, wadanka Waqooyiga Kuuriya waxa uu ka xun yahay in saxaafaddu caalamka ay gudbiyaan quruxda iyo horumarka wadanka Koonfurta Kuuriya, halka ay u arkaan Waqooyiga Kuuriya inuu yahay wadan burbursan oo aan wax horumar ah ka jirin. Si taas loo qariyo, madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya waxa uu dejiyay mishinkan si loo baajiyo in Koonfurta Kuuriya lagu qabto koobka Olombikada adduunka oo loo yiraahdo Koonfurta Kuuriya ma ahan mid nabad ah. Labadii basaas markii ay tageen Baghdad, waxa ay degeen hotel. Subaxii waxa u yimid laba qofood. Waxa loo keenay boorso yar. Boorsada waxa ku jiray raadiyo yar oo loo yaqaano nooca isha hayga gelin, laakiin markii aad korka aragto waxaad u moodaa raadiyo uu dhageysanayo odayga duqa ah. Run ahaantii ma ahan raadiyo. Raadiyahan gudihiisa waxaa lagu soo diyaariyay wax walba oo qarxa. Sidoo kale waxaa loo keenay dhalo. Dhaladaasi waxay u ekeed dhalooyinka lagu cabo khamrada oo kale. Waxaa ku jira gudaheeda biyo. Biyahaasi ma aysan ahayn khamro. Biyahaasi waxaa loogu talagalay markii uu raadiyaha qarxo in ay qaraxa sii weyneeyaan. Qorshahan waa mid aad iyo aad looga soo fikiray, waxaana laga ilaaliyay in uusan marnaba fashilmin. Waxa ay markaan isku diyaarinayaan inay dejiyaan fulintii ugu dambeysay ee qorshahan. Waxa ay goosteen fiisaha iyo tigidhka diyaaradda ay doonayeen in ay mishinka ka fuliyaan. Miami iyo odagii waxay u soo jeesteen dhanka eelaboorka maalintii la bixi lahaa. Markii la marayay qaybta baarista eelaboorka, waxaa lagu dhagay raadiyaha maadaama uu batari ku jiray. Askartu waxay u sheegeen odayga inuu iska reebo batariga, laakiin hal dhib ayaa dhici doona. Haddii batariga la reebo, qaraxaasi lama fulin doono. Odayga maadaama uu ahaa nin basaas ah oo aad u khibrad badan, waxa uu muddo dheer kadib ku qanciyay booliska inuu qaato batarigiisa. Waa uu qaatay. Sidoo kale waxa uu gacanta ku watay dhalo khamro ah. Xilligaas lama diidi jirin in khamrada ama waxyaabaha alkoolada ah lala raaco diyaaradaha. Waa ay gudbeen oo waxa ay galeen diyaaraddii. Ayagu qorshahooda ma aha in ay diyaaradda si toos ah u raacaan oo ilaa ay Koonfurta Kuuriya ay la tagaan. Qorshahoodu waxa uu yahay inay meel dhexe diyaaradda kaga degaan, gaar ahaan mid ka mid ah wadamada Bariga Dhexe. Diyaaraddii markii ay raaceen, Miami oo aad u naxsan waxa ay qaaday boorsadii qaraxa ku jiray. Boorsada waxa ku jira dhaladii iyo raadiyihii. Waxa ay ku qarisay meel ka mid ah diyaaradda meelaha boorsooyinka la dhigto. Mishinkoodii waa ay diyaariyeen oo raadiyaha qaraxa ku jira waxa ay ku bargaraamiyeen muddo 10 saacadood ah, maadaama lagu soo xiray saacad. Markii la gaaray halkii ay rabeen, waa ay ka degeen oo waxa ay ku degeen eelaboorka Bahrain ayay diyaaraddii kaga hareen. Diyaaraddiina sidaas ayay ku dhaqaaqday. Diyaaradda waxa u haray saacado yar, oo saacado kadib waxa laga yaabaa diyaaraddu inay qaraxdo. Miami iyo odagii basaaska ahaa waxa ay rajeynayeen in isla saacadaas ay hore ka jartaan tigidh kale oo ay ku aadaan Yurub, kadibna ay uga gudbaan dalkooda. Laakiin sidaas ma dhicin. Waxa loo sheegay in tigidhka iyo fiisaha ugu dhow ay qaadan karaan uu qaadan doono muddo 3 maalmood ah. Runtii waa ay ka xumaadeen, laakiin waxba kama aysan bedeli karin. Kadibna waxay iska degeen hotel meeshii u dhowaa. Diyaaraddiisa waa ay sii dhaqaaqday oo halkii ay doonaysay ayay aaday. Muddo 10 saacadood kadib diyaaraddii hawada ayay ku qaraxday, dadkiina waa ay baaba'een. Diyaaradda waxaa saarnaa markii laga reebo 15 qofood oo ahaa istaafka diyaaradda ka shaqeynayay. Inta kale waxa ay ahaayeen dad ka mid ah dowladda Koonfurta Kuuriya. Sidaasna halkaas waxaa ku geeriyooday 115 qofood oo diyaaraddaas saarnaa, markii laga reebo 2 qofood ee basaasiinta ahaa ee qorshahan ka soo shaqeeyay. Maadaama diyaaraddu qaraxdo, waxaa bilowday baaritaan halkii diyaaradda ay ka soo kacday, wadamadii ay soo martay, iyo in dib loogu laabto waxa qaraxan keenay. Miami iyo odagii basaaska ahaana waxa ay weli joogaan airportka Bahrain Hotel u dhow. Baaritaankii waxa uu qaatay muddo 3 maalmood ah. Maalintii afraad oo ay isku soo diyaariyeen Miami iyo odagii basaaska ah inay ka duulaan eelaboorka Bahrain, waxaa qabtay booliska. Waxa uu u sheegay inuu doonayo inuu si gooni ah ula hadlo. Waxaa la geeyay mid ka mid ah qolalka dadka laga shakiyo lagu baaro, laakiin odayga waxa uu ahaa qof khibrad leh oo waxa uu dareemay in ay wax jiraan. Booliskii intii baaritaankii uu ku jiray, odaygii waxa uu la soo baxay sigaarkii lagula ballamay haddii arrinta ay fashilmato inay cabaan. Waxa uu daartay mid ka mid ah sigaarkii, hal mar ayuu jiiday. Miamina markay aragtay odaygii
inuu sigaarkii jiida ayadana waxa ay la soo baxday sigaarkii. mid ka mid ah gabdhaha booliska ee halkaas joogay ayaa Miami ka soo gaartay, kadibna sigaarkii ayay ka tuurtay, laakiin odayga sigaarka si buuxda ayuu u cabay, waa uuna dhintay. Miami waa laga gaaray, waa la qaaday, waxaa la geeyay isbitaal, waa la daaweeyay, kadibna waxaa loo qaaday dalka Kuuriya si loo wareysto maadaama la ogaaday inay tahay qofka ka dambeeyay qaraxan inuu dhaco. waxaa laga soo dejiyay dalka Kuuriya, waxaana sugaya dhammaan dadkii ay ehladooda ku geeriyoodeen diyaaradda. gacanta waxaa loo geliyay dowladda koonfurta Kuuriya. baaritaan dheer, Miami waxaa la saaray maxkamad. Miamina waxa ay qiratay wax walba iyo inay ka dambeysay qaraxa. sidoo kale waxa ay sheegtay in qorshahan uu dejiyay madaxweynaha dalka waqooyiga Kuuriya. Miami maxkamaddu waxa ay ku xukuntay in la daldalo dadkii iyo ehladii dadka laga laayayna waxa ay sugayeen in dilkaas la fuliyo. maalinkii lagu balansanaa in la daldalo Miami, waxa goobta yimid madaxweynaha koonfurta Kuuriya, waxa uuna cafis u fidiyay Miami. dadkii oo dhan waa ay yaabeen, laakiin waxa uu ka watay maskaxdaasi maskax ka weyn. cafiska kadib waa uu waday oo waxa uu geeyay mid ka mid ah goobaha dowladdu dadku ku hayso. Miami waxa ay noqotay hubka kaliya ee dib loogu adeegsaday isla dowladdii ay ka dhalatay ee waqooyiga Kuuriya. Miami mar walba waxa ay ka sheekay jirtay xumaanta iyo gumeysiga ka socda dowladda waqooyiga Kuuriya. mar walba waxa ay ahayd qof ka shaqeeya TV-yada dowladda koonfurta Kuuriya, kadibna eedeeya ama dhaleeceeya ama ceebaha waqooyiga Kuuriya ka sheekeeya. waxa ay qorto buuggaasna waxaa lagu iibsaday lacago fara badan. lacagahaasi waxa ay dib u siisay dadkii ay dadka ka leysay. maantadan la joogo Miami waa ay nooshahay. Miami weli waa ay nooshahay, waxa ayna ku nooshahay dalka Kuuriya, gaar ahaan caasimadiisa Seoul. isla sidii ayayna weli u eedeysaa dowladda waqooyiga Kuuriya. fadlan haddii aad ka hesho sheekooyinkan si aan u soo badino kuwa la mid ah, noo saar like-ta, subscribe-tana ha naga hilmaamin.